xildhibaan cabdi shire ciyaar jecel uu helinayo ambassador Olio ayaa maanta waxa ay kormeer ku tageen xarunta golaha mihnadayaasha caafimaadka qaranka halkaasina waxa ku soo dhaweeyay xogayaha golaha Dr. Cadow haddaba xildhibaan cabdi shire sidoo kale ambassador Olio waxa ay mid u kormeereen qeybaha ay ka kooban tahay golaha mihnadayaasha caafimaadka qaranka iyagoona tilmaamay in golahan asaasitaankeeda ay wax badan markaasi laga soo maray gaar ahaan xildhibaan cabdi shire ciyaar jecel waxa uu tilmaamay markii uu ka mid ahaa xildhibaanada in uu xoogga saaray sidii uu markaasi qayb kaga noqon lahaa in lagu dadaalo in la sameeyo golo ay ku mideysan yihiin mihnadayaasha caafimaadka qaranka waxa uu tilmaamay in haddii caawati Allah ay u timaado ay markaasi bulshada Soomaaliyeed ay ku faani karaan inay haystaan golo markaasi ay ku mideysan yihiin mihnadayaasha caafimaadka qaranka waa kan xildhibaan cabdi shire oo ka hadlaya faa'iidada leedahay in la asaaso golaha mihnadayaasha caafimaadka qaranka waxaan ku hormarayaa guddigan mihnadayaasha qaranka iyo anigu waxa naga dhaxeeya waxa weeye in baarlamaanka markii aan midnaha kii 9aad iyo kii 10aad ba xildhibaan baan midnaha ka noqday kii 9aad waxaan ahaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga dastuurka kan kalena guddigan adeega bulshada adigu xubin ayaan ka ahaa shuruuc badan baa naloo keenay oo la rabay in aanu qayb ka ahaano adigu nasiib darro iyo si kastaba ha ku dhacdee sharciga kaliya ee caawa haddii tii alla noo timaado intayadii baarlamaanka ku jirtay oo guddiga qaabilsanayd ee aanu ku faani karno waa sharcigan golaha mihnadayaasha caafimaadka ee baarlamaanka aqalka hoose uu ansixiyay sida xogayuuba u sheegay July sanadkii 2000 in halka uu soo maro oo 2020 inuu halka yimaado adigu juudi dheer qolooyinka jabadaha iyo markii dalka burburaya jabadaha nin walba markuu sheegto wuxuu yiraahdo barnaamijkan ama jabhadan kaadadana u soo xabnay yiraahdaan oo dhinac qaar baa ku faana marka in uu halka yimaado runtii aniga iyo xildhibaano baada caafimaadka midnaha ka tirsanaa sida Dr. Marian iyo midnaha Miina iyo Amina oo ahayd ku-xigeenka gabadhii ku dhimatay Allah u naxariistay qaraxi Beledweyne iyo Ali oo markaa iyo rag kale oo farbay gabdho fara badan baan ahayn anigu marka waxaan ahaa adigu qofka go'aansaday oo albaab walba u garaacay in sharcigan uu hirgalo aad bay noogu adkayd maxaa yeelay barnaamij kasta ama gaar ahaan caafimaadka marka la rabo in laga miro dhaliyo waxa caqabadaha jiray caqabadu waxay nooga imaanayeen ganacsatada iyo dhaqaatiirtii ama xirfadlayaashii caafimaadka ee ka shaqeynayay danaha gaarka ama jaamacad ha noqdeen ama isbitaalada ha lahaadeen dadkaas dhib weyn ayaanu kala kulanay nasiib wanaag waa isnaqiinintooda badan adigu shirar baan isku imaanaynay marka qof baan marka u xuseeyon la Dr. Hebel maxaa dhacay problemka uu jiraa muxuu yahay marka laga soo tago magalino ayaan dalka ku soo laabtay marka waxaan go'aansaday wax inaan shacabkii kaga tago oo aan marka sharcigaas sidaas ku yimid kadibna November sanadka 2000 madaxweynaha ansixiyay 2023 dawladdan cusub hadda madaxweyne Xasan uu madaxda ka yahay khayrallaha si ayaa runtii taabageliyay kadibna markii labaad guddigan ayaa la sameeyay marka waxaan aniga farxadiya barnaamij aan sida ku bilaabay in maanta aan midnaha soo kormeero oo qolqol la ii geeyo la yiraahdo xafiiskan waa kan dhibaatada Soomaaliya jirta waxa weey waagi dambe dawladdu dhacaysay ayaa hotel qurux badan oo nin private leeyahay ayaa nin baa arkanaya markaas uu moodaya in dawladdu leedahay markaas uu leeyahay maarayaha laga dhigo meeshaan waxa iska la maka mukarrama calimaha iska leeyahay marka magiis ma jirto waxaan hadda cabsi ka qabaa barnaamijka quruxda badan ee agaasimuhu xogayuhu isku dabariday in TV-yada marka laga arko qol ay tiraahdo meesha inaan ku fariistaan rabaa laakiin anaga kor ka waardiyeynayna ma dhacayso ayaan leeyahay marka farxad bay tahay inaan midnaha maanta idin soo hor fariisto ka qayb qaato oo aabe Soomaaliyeedna waanahay
walaaca waxa ay hayay ahaa war adiga iyo ragga kula midka ah Dr. Kamaal iyo Maxamuud Shirey iyo Dr. Casayr iyo Cabduqaadir Duceysane telefishinka Danan Muqdisho. soo ma aragtaan waa degdeg waa amaano waa fudeed waa hal martaaba oo kaliya ku bixi mushaaraadka shaqaalaha si fudud oo hufan adigoo adeegsanaya tiknoolajiyada casriga ah dahabay altaabasho oo kaliya